wali waxa daawaneysaan warka TV-ga qaranka oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee Muqdisho iminkase wararka dibadda. madaxweynaha dalka Talyaaniga ayaa waxa uu xushay ra'iisul wasaaraha cusub oo uu yeesho dalka Talyaaniga. Mr. Conte oo xubin isku waafaqsan yihiin xisbiga 5 Star League ayaa durbadiiba waxay bilaabeen inay soo gudbiyaan xubnaha ay doonayaan inay ku galaan golaha wasiirada uu soo dhisi doono ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi. xisbiga Populista ayaa waxa uu asal ahaan doonayay in dawladdu soo dhisto balse waxay si cad ugu soo horjeesteen madaxweyne Sergio Mattarella maadaama wasiirku xisbigu u soo sharaxay dhaqaalaha aragtidiisu ay cidhiidhi ay geliyeen iyo aragtida uu ku qabo midowga Yurub inuu dalkiisa Talyaaniga ka baxo awgeed. waxaana wasiirka booskiisa lagu bedelay Cavani oo ah aqoonyahan dalkaasi caan ka ah oo leenayay in laga baxo midowga Yurub. dawladda uu soo dhisay madaxweynaha dalkaasi ayaa waxaa la filayaa maalmaha soo socda in la dhaariyo, waxaana la sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay in si dhaqso ah wax ugu qabato shacabka reer Talyaani. akhyaartiin daawatay waxaa halkaasi ku eeg ruuxii dalkii daafaca caalamka naga soo gaaray oo waqtigan idinkaga imaanayay TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada Muqdisho maanta oo Jimcaha ahay taariikhduna ay ku beegneed 1 bisha Juun sanada 2018. anigoo Raxmiiso Jimcaale ayaa warkii idin akhrinaya, anigii intii la qayb gashay waxaan idinkaga tagaynaa Ramadaan Mubaarak.